maanta deganaanshaha iyo xasiloonida aan helaynaa keliya waxay tahay deganaanshaha siyaasadeed iyo kala guurka siyaasaddu marba siduu ku yimaado iyo doorasho inay dhacdo oo kugusan ay noqoto la isu wareejiyo isdaba wareega sababta waynu gaari doonaa marxaladda ugu dambaysa iyadoo ay doorasho dhib badan tahay ogtihiin hadda Mareykanka oo qarniyo soo dhexsamayn jiray doorasho boqolaal sano yaa hadda aad arkaysaa inta shiitan iyo wax ka jiray maxaad u malaynaysaa innaga kuwaas institutionno iyo sharciga waxay isku xakameeyaan bay helayaan oo waxa xakamkanagu uu yahay oday qabiil waxa wax kala xukumayay oo ay tahay mataqaanaa cid wax fulinaysa iyo implementation kala imanaysa qoriga uu yahay iyo qabiilka waxa soo dhawaad garan kartaan waxa ay keeni karaysa iyo mushkiladu inta ay saameyn yeelan karayso haddii marka aanan ka fakirin waliba cid kasta oo mas'uuliyadda haysaay aynan garanin waxa marka meesha yaalay waa arin aad iyo aad dhibaato ah xawar baan soo tan waxbaanu ka wada hadalnay waxa la yiraahdaa doorashaha la qabto sidaa loo qabto state wali laba meelood ha lagu qabto aan idin weydiiyay maanta guddi baa la iga sugayaa waxa laga hadlayaa doorashadii inaan qabano waxaan sameynaa waxaan noo qiran laba caasimad gobol baa la yidhi inaan Kismaayo iyo Galbeed ku qabano Jubbaland maanta ma ka talisaa ma joogtaa jabhadii ciidan baa lagu sii daayay waa goorma jabhadii sagaashamaadkii la bilaabay maanta soo noqotay jabhad wax lagu raadin karaa jabhad inay maanta noqoto inay iyadu ka taliso waxa kaaga daran waxay wataan warqad gobernatoraha gobolka Gedo ee Jubbaland maamulka Jubbaland ee kan who is Jubbaland anagu aan maamulaynin ee Jubbaland xagee joogta shalay baan arkay warqad nin soo qoray oo leeyahay maamulka doolo iyo kan iyo waxaan kale maalin walba wareegtay Jubbaland war Jubbaland ayaan darana goormaan jabadnimo ka soo gudubnay doorashada aan qabanaynay waa in waxaan ku heshiinay ay dhacdo waa sax waxaan rabnaa doorashadaas inay dhacdo waqtigeeda ku dhacdo dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyay waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo state walba oo loo meelood ku qabto waxaan diyaar u nahay inaanu qabano oo labadii meelood ku qabano laakiin waa goorma waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee gudoomiyihii gobolka uu tago ee ku-xigeenkiisa uu tago ee maamulada degmooyinka ay tagaan ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan iyagu ay wax ku samayn karayaan